شركة استقبلت وفردها استقرار على الإسلامية waxay ilaahay waxaa lagu mahadnaqo waxa weeyaan waa habeenkeeda badan oo mahadnaqa ugu horeeya ilaahay oo leh idinkan idin maamuus leh martida qiimaha badan ee soo socota waqtigoodii iyo taymkoodii iyo waqti badan soo geliyay manhaj xafladda ayaa mahad balaaran leh runtii ma qiyaasi karayo caawa farxadda intaa leeg degmadii bisha waan kusoo bandhigay buuggii xilliga guusha buuggan xilliga guusha waxaan kusoo bandhigay hargeysa berbera burco 3 meelood baan kusoo bandhigay waana buuggii ugu horeeyay aan qoro inuu ujeedooyin aan u qoray ujeedada buugga aan u qoray ku qoran tahay waxaana si u yeelatay magaaladii taariikhda lahayd magaaladii qiimaha lahayd magaaladii magaca lahayd ee sheekh inay noqoto magaaladii afraad aan kusoo bandhigay runtii buuggan waxaa lagu qoray magaalada berbera lagu qoray waa buug ka mid a buugtii gobolka saaxib ee lagu qoray gobolka saaxib buuggan ujeedada loo qoray baan bilaabi doonaa buugga sabab leeyahay ujeedooyin loo qoro ujeedada buuggan aan u qoro waxay ahayd jacayl iyo xiise aan u qabo inaad qoro markaad jeceshay inaad qortid markaad jeceshay inaad taariikh ka reebtid waxa weeyaan xiise aan u qabo inaad qoro marka buuggan u qoray qof haddana jacayl iyo xiise u qabo inaad qorana inaad kaasi inuu qoro buugga waxaa u qoray qof kaste oo akrinaya oo Soomaaliya oo wadankiina u dhashay si uu ula wadaago aqoonteeda weerarnimadeeda ayaa waxaan qoray buugga xilliga guusha si aan u fahamno toobiyaha iyo marinka guusha ayaan buugga u qoray sidoo kale si aan u fahamsiiyo dadkayga wax badan oo aan u arkay inay guul yahay ayaan buugga u qoray ujeedooyin badan baan buugga u qoray markii aan qiimeeyey qodobo badan iyo qoraallo badan oo aan hore u qoray hore waxaan u qoray ilaa 370 maqaal oo taxane ahaa oo aan ku qoray baraha social media sida warshadada iyo facebookyada 350 maqaal markii aan qoray ayaan jeclaystay inta badan waxaan ka qoray arrimaha bulshada iyo horumarka iyo guusha ayaan inta badan ka qori jiray markii aan intaa qiimeeyey qoraalladii aan keed ku haystay ayaan jeclaystay buuggan inaan buugga xilliga guusha qoro si loo guulaysto ifii aakhiraba ujeedada buugga waa mid ku saabsan in bulshada ay fahanto sida loo guulaysto xilliga maqaabo koodooyinka ee guusha ujeedada aan buugga u qoray waxay ahayd wixii aan u arkay inay badda iyo bulshada faa'iido u tahay inaan u reebo oo uu noqdo talo iyo tusaale markii aan arkay buugaag badan oo lagu soo bandhigay waddanka kuwaasoo u badnaa siyaasad sheekaftaneed iyo arrimo kale ayaan jeclaystay inaan qoro buugga xilliga guusha ama sidee bay dhallinyaradu ku guulaysan kartaa si ay u gaadhaan hadafyadooda buugtii ugu badnayd ee lasoo bandhigay ayaa u badnaa taariikho sheekooyin iyo siyaasad si aan uga weecdo oo aan dhallinyarada ugu dhiirigeliyo siyaasadda inaanay ku falanqoobin ama aanay ku talax tegin ayaa waxaan qoray buugga xilliga guusha inay raadiyaan waxay guushu tahay buuggan ujeedooyinkiisu way fara badan yihiin waxaan inta badan ku saabsan dhiirigelin aan u soo bandhigay dhallinyarada si ay ifii aakhiraba u guulaystaan oo buug inta badan ka tarjumaya sidaad u guulaysan kartaa marka la doonayo guulaystada waxaan eegay cawaaqib fara badan waddanka ka jira dhibaatooyinka dhallinyarada haysta dabeetana buugga baan isugu soo maanguuriyey buuggan afeef baa jirta aan dhiganayo mahadnaq baa jira hibeyn baa jirta mahadcelin baa jirta
haddii aan galo xagga mahadnaqa dad badan oo aan halkan kusoo koobi karin ayaa qayb ka ahaa inaan buuggan soo daabaco oo uu halkan soo gaadho. haddii aan isku dayo inaan dadka u mahadnaqo waxbaan ka tataaban doonaa inta ugu muhiimsan. buugga marka ugu horta waxaan u hibeeyey labada waalid, hooyadii iyo aabahay ilaahay jannada geeyey, labadooda nool yihiin. sidoo kale buuggan waxaa qayb ka ahaa oo iga caawiyey inaan daabaco shirkadda Telesom iyo maamulkeeda. nashqada qurux badan aad arkaysaan waxaa sameeyey injineer Jamaal Cali oo inala fadhiya oo ka socda shaqada Telesom, oo maanta umriga koowaad ee kasoo qayb galay intii hore mashquul buu ahaa, laakiin maanta ilaa sheekh ilaa burbursigii iyo sacabka maxkamada lagu celay. sidoo kale waxaan u mahadnaq celinaya oo buuggan qayb muhiima ka qaatay abwaan Cabdinaasir Cali Cabdiraxmaan oo ah nin reer Sheekha oo isna nashqada lahaa design oo isna wax badan ka geystay. inta badan dadka ama mahad celinaya inama joogaan, laakiin intay la joogta waxaa ka mid ahaa Cabdinaasir, waxaa kaloo ka mid ahaa Maxamed Yaasiin Waarig Neri, dhalinyaro badan. Cabdiraxmaan Cali baa isna ila socda oo aan halkan kusoo koobi karin, ayaa ka mid ahaa dadkii hadiya habeen garabka iyo ahayn buuggan qoro. runtii waa ii farxad inaan markii afraad kusoo bandhigay magaalada Sheekh, waana ii mahadnaq inaan u mahadnaqo martida qiimaha badan leh, dadka aqoon-yahanka doonaya inay cilmigan iyo aqoonta buugga ku duwan ay ka faa'iidaystaan. runtii qofku marka uu doonayo inuu wax noqdo waa inuu wax badan akhriyo. buuggana dee qofku ka akhris badan yahay, uu ka aqoon badan yahay, waana ka waayaanimo badan yahay. inta ku jirta haddana caawa israa dhamaystir dee waxa weeyaan ma dhammayn karayo, laakiin idinkaan ugu talagelay inaad akhridaan oo aad wixii khaldana saxdaan, wixii aan saxin ugu hambaliyeysaan si aan u sii wada qoraalka iyo akhriska. buuggan aad arkaysaan waxa weeyaan waa buuggii aan ugu talagalay caawa inaan magaalada Sheekh kusoo bandhigo. waana ku faraxsanahay sidaa u soo camirteen madasha, waana taariikh anigana waa ii farxad mar labaad iyo mar saddexaad. dhammaantiin cid kastoo hawshan gacanta ka geystay, cid kastoo aan ka seexan oo mahadnaqaya. runtii buuggan haddaan qodobada uu ka kooban yahay ama inta ku jirta tusmadiisa wuxuu ka kooban yahay 242 page. intuba waxay ku saabsan yihiin arrimaha bulshada. anugu shakhsiyan waxaan ahay sidaas garan qaar badan baa garanay maamulaha Alloor Hotel Berbera. waxaan aad kala shaqeeyaa arrimo badan oo ka mid yihiin arrimaha bulshada, akhriska qoraalka qayb baan ka ahay, xagga geed barashada qayb baan ka ahay. barnaamijyo badan oo aynkaas ayaan dhalinyarada kala shaqeeyaa. intii aan la shaqeynayay waxyaalaha aan arkay qofku inuu wax ku noqon karayo ayaan baan buuggan ku aruuriyey. intii aan ku dhex jiray arrimaha bulshada waxyaalihii aan kasoo dhex aruuriyey ayaan buuggan ku aruuriyey, iyo wixii aan fikirkayga aanaan hayay. 90% iyo badh waxa weeyaan waa curin inta badan maskaxda kasoo maaxatay. xagga buugaagta inta badan lasoo xigtay, laakiin waa curin iyo 10% baa xigishaa. runtii maaha buuggii koowaad aan qori doono, waan sii wadi doona insha Allah. mar iyo mid labaad mid saddexaad inta waqtigu iga hadhayba waan jeclaan wax qoro. idinkana waxaan idin soo jeedinayaa inaad noqotaan dhalinyarada jecel akhriska iyo qoraalka, dhalinyaro diyaar oo wax qoraan, dhalinyaro iskaashi iyo horumar iyo guul intaba jecel. runtii qofku marka uu meel doonayo inuu gaadho waxa weeyaan waa inuu wax badan akhriyo. markaad jecesha inaad hadafkaaga kaga magaaleysid, markaad jecesha inaad guul gaadhid, waa inaad wax kasta oo aad waddo kasta oo qaadi kartaa. haddaad buug akhrisan kartid, haddaad waayeel dhegeysan kartid,
هذا dadka guusha wax ka yaqaan la saaxiibi kartid kalow kutubiyada kuwa ka kooban yahay haddaan qaar ka mid ah idiin sheego waan idin dul maro waxaa ka mid ah ugu waaweyn xilliga guusha waa maxay guushu waa kutubiyada kuwa ka kooban yahay sirta guusha wadooyinka guusha goormaya la guulaystaa guusha iyo qorshaha nafta farxadda waxa ugu muhiimsan muhiimadda ay leedahay inaad dadka caawisid buugga wuxuu ku dhiirigelinayaa inaad bulshadaada caawisid oo aad qayb ka noqotid oo aad la shaqaysid oo aad ka dhex shaqaysid oo wixii taalkaaga ah hadday aqoon noqoto hadday dhaqaalo noqoto ama mid kaste aad ku caawisid sidoo kale wuxuu ka sheekeynayaa waxay noloshu tahay marka nolosha la fahmo in farxadda iyo nolosha qiimaha ay leeyihiin sidoo kale wuxuu ku dhiirigelinayaa inaad wax ka ogaatid markaa subax kasta kacdid ama maskaxdaada tuujin kartid subax kasta maskaxdaada tuuji waxa weeye waa qodob ka mid ah ama beej ka mid ah beejka buugga waxa weeye qofku markuu subaxii kaco inuu su-aalo badan isweydiyo maskaxda tuujiyo maxaad u baahanta saaka halkeebaad u baahanta inaad gaadhid maxaa soo kordhin karta waxaasoo dhan buugga baa ku tilmaamay waxaa kaloo ku jira 30 qodob oo kuu keenay inaad guursatid iyo 30 qodob oo kuu sheegaya inaad guuldarsan kartid waxaa kaloo ku jira 40 qodob oo warwarka nolosha kaa ilaalinaya qodobadaas oo dhan waa qodobo aan indhahayga ku arkay oo aan xaqiijiyey oo aan meel dhigay oo aan buuggan ku qoray maaha qodobaan ku qoray oo qodobaan qof kasta ka eegay dadkan saa u dhex maray hebel lagu guulaystay muxuu sameeyey research baan sameeyey cilmibaaris baan sameeyey muddo ilaa 2 sano iyo badh ah ayaan buuggan qoray 2015 baan bilaabay 2018 waxa weeye waan dhamaystiray buugga wuxuu ka sheekeynayaa iskaashiga bulshada in iskaashato oo ay wax aqoonta iska kaashadaan oo dhaqaalaha iska kaashadaan oo wixii danta bulshada laga shaqeeyo oo wixii danta guudaha laga shaqeeyo wuxuu ka sheekeynayaa in qofku aqoon yeesho oo uu naftiisa meel kasta oo aqoon ka heli karayo uu raadiyo runtii 240 beejka buugga ka kooban yahay waxaa ku jira ciwaano muhiima ama beeshaj muhiima oo ay ka mid tahay farxadda soo dhoweynta wala caddaynta soo dhoweynta haddaad soo qaato si fiican bay soo dhoweysa waad mahadsantihin waxaa kan buuggiga baa sheegaya qofkayga soo dhoweeya markaad sida fiican soo dhoweysaan waxay sheegaysaa in gobolka sheekhiyaama ama degmada sheekh tahay degmo qiimo badan oo taariikh leh waanaad ka mahadsantihiin waxaa kaloo jira dhoola caddaynta oo ayadana wadooyinka lagu guulaysto qofku ka dhoola caddayn badan yahay xagga guusha uu kaga dhow yahay waxaa kaloo jirta wadaniyadda ayuu buuggiga ka sheekeynayaa qofku inuu waddan dhaba noqdo oo waddankiisa ilaashado uu xashiish ka ilaaliyo uu wax beero uu cid kasta ka jeclaysto oo aan waddanka u dhalan intaa waxaan kusoo koobayaa oo aan marna waqtigu noo saamaxay tusmada buugga buugga ka kooban yahay ilma guushu afeefkaa jirta wixii aan khalday biniaadam baan ka ahay waxaan diyaar u ahay inaan saxo way jiraan bugaag badan waddanka lagu soo bandhigay qaar baan laga qaydiyey idinkaasi kuwa laba mid aha waan caddaynayaa inaan bugaagta aan la mid ahayn wixii laakiin khaladaada ee yarare hadday erres noqoto waxaan diyaar u ahay oan caddaynaya inaan sixi doono waa i soo jeestaa idinkuna emailkaa ku qoran inay fariin soo dirtaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waqtiga qiimaha badan leh aad siiseen si ay u soo dhaweysteen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa farxadda itusteen waxaa mid ay dhaamayo mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maamulka gobolka waqtiga iyo dadaalka filmiya aad iyo aad ugu mahadnaqayaa cid kasta oo qayb ka ah in buuggaas caawa hirgalo oo la soo bandhigana iyaga aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waqtiga awgeed aad iyo aad